arrinta galmudug waxa aanu ku talinay in dib u heshiisiin laga sameeyo markii la weydiistay maxaa la yidhaahdaa extension ama waqti kororsi waxaanu ku nidhi waqti kororsi waxa weeye waxaa ka horreeya horta process in la maro dowlad goboleedyadii kulli waa nagu raaceen madaxweynaha dowlad goboleedka galmudugna waa nagu raacay laakiin markii uu tashi geliyey waa isbeddelay annagu ujeeddadeen waxay ahayd process in la geliyo dib u heshiisiin laga bilaabo kadibna doorasho loo gudbo runtii annagu waa isku daynay in aan si kasta aan u muujinno inaan diyaar u nahay wada shaqayn iyo iskaashi sax ah sidaad og tihiin wax yar kaftanaan ku darsadeen sidaad og tihiin qofku hadduu xanuunsan yahay 3 process yuu maraa 3 phases 3 wajuu maraa waji waa inuu aqbalo horta inuu xanuunsan yahay oo cisbitaalka aado oo lugihiis ku dhaqaaqo ama la geeyo meesha uu yiraahdo waxaan u baahanahay xaaladda inaan ogaado stage-ka labaad ama wajiga labaad waa in la fiiriyo xaaladiis cudurku qabo iyo xaaladda uu ku jiro sidee u xun tahay ama sida loo daaweyn karo diagnosis ayaa la yiraahdaa qaybta saddexaad waxa weeye marka la ogaado cudurkiisa waxaa loo qoraa daawo ama prescription ayaa loo qoraa arrinta galmudug markaan ka hadlo arrimaha kale gaar weeye waa aragnay dhibka jira waa dhegaysanay diagnosis yaa sameynay oo waa baarnay waxaan ogaanay in loo baahan yahay in la wada hadlo dadka gobolka degan dib u heshiisiin loo sameeyo ka bacdina doorashadii la galo madaxweynaha walaalkay ma aqbalin daawadii ma qaadan marka hadda choice-ku qofku markuu meel yimaado uu yiraahdo waa xanuunsanahay la ogaado oo daawada la siiyo choice-ka isaga askale inuu qaato daawadii inuu diido laakiin haddii ladin yidhi galmudug lama xallin waa la xalliyey laakiin waqti kororsi oo intaas ka badan waxaan u aragnay inay u baahan tahay dadka reer mudug iyagu inay ka gaaraan go'aanka inay ka gaaraan oo ay wada fadhiistaan oo ay wada hadlaan oo la heshiiyo